السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير. ما أنت ساري مالين وناكسن هبين وناكسن أسعدتم صباحا ومساء. نبدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة أفضل التسليم. marka maanta waa ujeedaan inaan kaamarada iska jeediyo weli beedkaygan joogaa. maanta waa roob, nicmata ilaahay, qeyth baa socda, roob badan ilaa xali da-ayay. calaykum assalaam. hoosaan usoo degay maxaa la dhahaa kaadkayyaashii hooyo macaan soo dhawow yaxye. my cat feed the cat. meelahaan soo socday waa soo noqday, beedkaygaa iskaga soo noqo, soo dhawow. calaykum assalaam. marka maanta aayad qur'aana baan meesha, 2 aayadood qur'aan, suurati saaf. waana idin sheegayaa sababta. okay, shalay baan waxaan ka dhahay ayaamahan oo dhan weligay waan ka fakaraa. waxaan dhahaa dadka maxaa dadka loo caayayaa, woolkaaga freea ku tahay, waxaa doonta ku soo qor, you have a right, no one ku samaynayo oo ku caaynayo xaq ma ahan, go next. hadduu qofkan wixiisa ku cajab geli soo ma dhahin. marka allahu subxaana watacaala, maanta gabar baa xalay iisoo dirtay video youtube. waan taabtay, waan galay, waxaan arkay maxaa la dhahaa video. waa sheegay since aan ka hadlay, waa inaa yani waxaan ka hadlay waa inaa ogaataan. gabadha maxaa la dhahaa fanaanada ilhaam xarago iyo fanaanka basbas airport jooga oo dhahay halkeen u socono, having fun, right? you have to guess meeshaan u socono, blah blah blah. it just was light moments for them. me farahan ka falanahay, I cannot intaan video youtube galo inaan kasoo baxo, dhib bay igu tahay. I don't know inaan dabeecadaas iska gooy waan jeclaa. so first thing maskaxdeeda kusoo dhacday waxay ahayd I believe it was like a prank. waxyaalaha dhacdhacayay iyo maxaa la rivalska iyo dagaalkii maaragtay baa waxaan u qaatay inay maskaxdeeda marka hore waxaan uga aamusnaaba oo iskaga qoslaayaybo. waxaan sahaayay they just daday ku dhibayaan, dagaalay ku jiraan, blah blah blah. marka first thing maskaxdeeda ku dhacay maxay noqotay ma kasaysaa? waxaan kusoo qoray mataqaanaa those 2 clowns took the prank marriage to the next level baan kusoo qoray. waan ka baxay 2 jawaab, I didn't know. marka gabar waxay ku tiri goorma isguursadeen, blah blah blah. so ana waxaan kusoo qoray wallahi I don't know, I could be wrong. right away, subxaanallah. yani markaan idin dhahayo qur-aankeena kariimka ah, every situation aad samaynaysid ilaahay kitaabkiisa in lagu noqdo. since aniga aan qur-aanka soo dhigtay markaan dhahayo it's not like xafidka most Somalis, I'm so sorry, I don't mean it. laakiin macnihiisa iyo maxaa la dhahaa asbaabi nuzuulkiisa iyo waxaasoo dhan baa lii baray. marka waxaan soo xasuus isla markiiba, yani 5 minutes kama soo wareeganin, waxaan soo xasuus wallahi ka badanaa kasoo wareegay, astaghfirullah. waqtiga ma xasuus, laakiin waqti yar baa kasoo wareegay. waxaan xasuustay allah subxaana watacaala suurati saaf uu ku dhahayo yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ina allaha yuxib aladiina yuqaatiluun fii sabiili. aayad takmiiladeedii. marka kelmadii baan soo xasuus ilaah inuu aniga la hadlayo. waxaan idin sheegayay, idin waaninayay dadka inaan la dhibin, dadka inaan la caayin, woolkoodii iyo meelahooda ayaga leey sidii gurigooda oo kale waay. if you don't like it, you don't have to say anything negative, iskaga soco. laakiin anigii baa sameeyey. naftayda aniga shaydaan korka kama saarayay. markaasaan waxaan dhahay waa ku noqday, waa ka tirtiray. and then I was like, I'm sorry, I call you clown. marka waxaan idin sheegaya sometimes mistake uu dhacaa, qalad waa samayn kartaa, waxaad aaminsan tahay aad khaalifi kartaa. marka aayadaasaan soo xasuustay. ilaahay ma dhihin gaaladow, munaafiqiintooy, maxaa la dadka xunooy, ilaahay ma dhihin. ilaahay muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, dadkii ilaahay aaminay. yacni ilaahay weli karaamo weli noo haya anagoo qaldaaniin ah. marka wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun, maxaa u dhahaysaan ood u sheegaysaan waxaydaan idinkuba samaynaynin.
haddana ilaahay warni buuna siinaya muxuu yidhi kabura maqtan yacni waxaa dembi kugu filan an taquluu maa laa tafcaluun inaad dadka u sheegtaan ama aad dhahdaan waxaydaan idinkaba samaynaynin marka intaasaa idinla soo orday waa camaliyan ilaahay uu itusay maxaa la dhahaa qaladkayga aayaddii qur'aankan ku noqdo marka guys markaan dhahayo qur'aanka waa manhajkeeni waa dastuurkeeni waa manualkeeni wallahi alcadiim maa fi shay aa samaynaysid ilaa ilaahay subxaanahu watacaala aayad kuu sheegaysa ilaahay may dhihin munaafiqiinow hypocritow qof dadka xunow may dhihin yaa ayuha aladiina aamanu dadka ilaahay aamina fiir yacni karaamo iyo ilaahay waanadiisa xataa sax weeyaan lima yani si karaamo leh lima taquluuna maa laa tafcaluun maxaad u sheegaysaan waxaydaan samaynayn kaburad maqtan cinda allah an taquluu ilaahay agtiisa dembi weyn weeyaan an taquluu inaad tiraahdaan waxaydaan samaynaynin marka maanta waxaan inaan humanitygayga iyo vulnerabilitygayga inaa idin sheegaan rabaa because waxaan aniga ahayn inaad iga aamintaan expectation aan maxaa la dhahaa oo igaarsiisaan ma rabo I wanna be humbled that way wallahi ilaahaya igu og markaas inaan idin sheego anigaba inaan anoo idin sheegay wacdi idinla imaada qur-aankii la isoo baro oo waajib iga saaran tahay cilmi laa yanfac rasuulkeena calayhi afdal salaatu wasalaam baa ka cuudu bilaystay cilmu laa yanfac marka maantaan idin sheegaya vulnerabilitygayga inaan maanta intaan wax arkay intaan taabtay aan arkay aan already aan comment ka sameeyey oo dhanka negativeka ka eegay I wanted to mind my own business soo ma aha marka waa kaas ahay intaasaan idinla soo orday gabdhahayga iyo wiilashayda aniga qur-aanka markaan idin sheegay aniga igu soo noqonaysa anaa isa soo xisaabinay so doesn't mean inaan idinka aan idin maxaa inaan idinka idinska kiindhisa idin sheegay anigaa ku hagaagayo waxaa la yidhi cilmiga waxaa ugu fiican cilmiga markaa bart inaa qof kale bartay maxaa u barta la-anna maskaxdaadu ku dhagaya markay aniga keligaan iska akhrisanayay keligay unbay ahayd tadabbur ma igu dhicin laakiin markuu afkayga ka soo baxay oo aan isdhagaystay oo haddana camalkayga fiiriyey markaase waxay ii noqotay wake up ma garateen marka anigaaba idinka faa'iidaysano oo maslaxad weyn maaragtay idinku qaba inaan ilaahay qur-aankiisa sheego because markaan sheego oon fasiro oon ku noqdo aniga qaladaadkaygan arkaa marka aan isku saxaa marka intaasaan idinla soo orday inaan idin sheego bani aadamka wuu fiican yahay inuu diintiisa barto doesn't mean inaa qalad samaynaysa laakiin qaladka waxaa weye waa saxaysaa min qariib aladiina yatuubuuna min qariib gabadhii marka ma dhihin I'm sorry keliya gabadhii waxaan ku iri I'm so sorry inaan clown idin bixiye because kelmadii aan dhahay those two clowns yacni dad clownka ma wada inaan hoos u eegayo wallahi waxaan ka eegay yacni dadka majaajilada sameeya caruurta yaryarka markino clownka birthday clownka la keeno caruurta ka qoqoslisiisa yacni joke iyo majaajilaad haysiin laakiin now it's like too boring ay noqotay aan ka waday marka thank you so much marka saasaan idinla soo orday bani aadan baa ahay hooyooyinkiina be kind to them hooyooyinkiina ayaga naftirkooda ma aragtay they are learning marka ilmo dhashid manual laguma siinayo cunug kasta waa different mentality buu yahay mistake waan sameynaasa hooyooyin anaga xataa marka hooyooyinkii naftirkiinabo tiktok badan oo caruur dhalinyaro oo hooyooyinka fan immigrant moms fan ka sameynayaan arkay we don't know wadan cusub baan imaan so be kind hooyada iyo aabaha iyo ninka qur-aanka kuu dhigayay kii sheekhi they are human as well ma garatay so be kind to them waxay sheegayaan in maxaa la dhahaa iyo waxay sameynayaan they maybe way saxayaan so just be kind to one another markaa qofka bini aadamka aad siisid maxaa la dhahaa cut them some slack oo tirada maybe saas kama wadin isa better positive kaasa inaad u fikirtay adna qalbigaaga wuu ku hagaagayaa I should be wallahi maalin kas intaan recognize garaynayno maskaxda over my head ka baxaysana way jirtaa laakiin kan ma aragtay it hit me because waxaan ayaamahan oo dhan ka fakaraya why we harming each other why maxaana isku liana waxa weeyaan booga aan la daaweynin oo korka laga saaray bandage the booga bandage la saaray
waa lisa saamaxaya boogadii hoos way weli way bugtaa laakiin bandage unbaa kor laga saar infectionka hoos uu ku jira marka wax yar le u baahantaa bub labadii saaxiibka noqday oo heshii haddana way soo noqonayaan because waxa weeyaan deep in laisku fiiriyo it's a painful wallahi markaad qalbigaaga ma aragtay keliga aad faqfaqdid oo tiraada kamaan sameeyey kanaan sameeyey sometimes you have to forgive yourself marka waxaa maqli jir mataqaana the best khair aad sameynaysa naftaada u samee be kind to yourself sometimes we beat ourselves so much that niyadda dhan xataa way kaa jabaysaa dadkii oo dhanaad waxaad leedahay negative u arkaysaa wax kasta waxaad leedahay haddaan qof dhex galo dhibaatadeeda amay gaarta aniga but so we want to forgive ourselves fix dadka other people anagana aan forgive isa siino because anaga xataa bini aadan baynu nahay we beat ourselves so much marka some people maxay sameeyaan mataqaana instead of ayaga because painful way to beat up yourself oo qaladkaaga lan way badan tahay maxaa saxee maxaa dhaafay marka some people intaas ma rabaan they want to face themselves mirrorka korkaaga le laakiin mirrorka down markaa fiirisid marka waxaa sahal u noqonaysa dadka kale inay farta ku fiiqaan because it's hard anaa ku dhahay it's hard to look myself oh my god I would hate so I'm learning to be kind to myself qaladaadkayga waxyaalaha aan dhahayo wixii la isoo baray dembiga aan dareen because I know better I should be doing better because when we know better we have to do better right I don't know it's not my business qaladkaas ugu weyn aan suubiso taas maahan it's not my business I want to mind my own business wallahi ayaga afkooda ani kama maqlin dad kale dhahayo way isguursadeen ani afkooda kama maqlin labadooda wax ay dhaheen ma jirto hinti iyo pictures but it's not my business wallahi it doesn't make any difference in my life haddaan ogaada inay isqabaan iyo haddaan ogaada inay isqabin noloshayda wax ay kusoo zaa'idinayso kheer iyo shar midna ma jirto it's nothing to do with my life subaxii sidii le usoo kacaa sidii le wax u cunaa sidii le biilkayga u bixinaa wax ani ka faa'iida oo iskugu mashquuliya qalad waaye laakiin bini aadan baana waxaan horteena yaalaa public waaye opinion aan ka leenaha waa runtaa but sometimes like opinion aan wax kasta inaan ka qaad laana public weeyaan right and we give ourselves freedom laakiin anaga maanaan vote garaynin anaga meel maanan gaarsiinin anaka maxaa la dhahaa permission maanan siinin sida like a politicianka la doortay oo kale ma aha fa deer xor weeyaan haddii aad flowingkaaga iyo maxaa la dhahaa thumbs upkaaga iyo haddaa kala noqonays it's up to you xor baa u tacdaa walba siis adaa ka qaadan kartid laakiin qof walba platformkiisa isaa iskale the way they want to have a fun and they are not harming the most important they are not harming anyone they are just maybe having fun so intaasa idinla soo cararay is not ceeb ma aha inaad tirahdo hey let me check myself out I am crossing my boundaries marka intaasa idinla soo cararay wax kastana inuu quraanka ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu sheegay every situation wallahi quraanka ma aragtay mar kasto I don't know in my life how many times aan quraanka maxaa la dhahaa aan kulligiis aqriyo 600 time ma ogi I don't know but every time I read Quran maybe waxa wacyiga aan waqtigaas joogo my state of mind iga miya I don't know age ka miya face ka maraay miya every time some ayadaha ma aragtay I feel like I'm reading first time in my life marka aayadaasaan ku khatimaya acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan arajiim bismi illahi raxmaani raxiim yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun sadaqa allahu alcadiim ilaahay wuxuu leeyahay dadkii ilaahay aamino maxaad u lahaysaan waxaydaan samaynaynin dembi weyn waay kabura maqtan waa kabura maqtan waa dhib dembi badan weeyaan cinda allah ilaahay agtiis way ku weyn tahay ilaahay agtiis way ku weyn tahay inaad tiraahdaan waxaydaan samaynaynin so intaasaan idinkaga tagay asbaaba nuzuulka maxaa la dhahaa because aayada ku dambaysa maarad ka dambaysa aa sheegayso maxaa la ilaahay subxana watacaala inuu dhahay ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiilihi safan kaannahum bunyaanun marsuus marka sababa nuzuulka waxaa leeyahay dad maxaa la dhahaa mu'miniinta ku jiray oo muslimiinta ku jiray baa waxay dhahayeen dagaalka oo fiican haddana ma ay samaynaynin so
that is the siiqada ay dhahayn laakiinse kelmadda meel kasta way geli karta qof kasta oo uusan samaynayna sheegaya oo ma dhahaya ama dadka amraya faraya waxaa laga rabaa inuu isaga waxaas uu ku dhaqmo uu sameeyo uu iska saxo that markaa dadka forgiveness dadka inay dadka cafiyaan aad rabtid adiga dadka cafi give you get right so intaasaa idinkala soo wareegayay still I'm so lazy oo ii jeedaan beedkaygan weli fadhiyaa and I don't know hoostaan tagay hal saac waxoogaa ayaan wax soo hagaajiyey kitchenkii waxaas then I just odaygana shaqo aaday so guriga keligaya jooga marka I just came back to my bed that's all so السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أبرار وأنا بحيي بركة كسي بحيي أم أحلام باسوق الشين so خير يا بركة أنا تجيا كلمة دي هالهاي سكتيجانا يا مركة جنرال نوبلا نحط عين الحياة مركي عن محل دايس إن شاء الله تعالى جنرال نوبلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته